السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا waxaan isugu nimid aan waqtigeena inta aan ku qaadano saakay ma aha inaan tababar sameynayno laakiin waxaan rabnaa inaan sameeyno wax yar oo dardaarana maadaama tartankii uu noo soo dhamaaday marna aan ku guuleysanay horyaalka dalka waxaan rabnaa inaan hambalyo iyo bogaadin iyo aan sameeyno kadibna aan ku wada dardaarano oo meeshaasna isku macsalaameeyno waxaan gali doonaa fasax yar ka horna waxaan sameysan doonaa wax yar oo photo group kadibna waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan ciyaartooyda iyo maamulka iyo taageerayaasha sidii wanaagsaneyd ay ugu dhabar adeegeen inaan ku guuleysano markii saddexaad oo xiriir horyaalka dalka inaan noqono shaqadeedana waxaa iska leh maamulka oo facility walba ama howl walba oo kooxda u baahneyd diyaariyay macallimiinta oo iyagana hawshii la rabay sidii saxda ahayd u qabtay ciyaartooyga oo iyagana waajibkii loo diray ka soo baxay marka intaas oo dhan markii la isku geeyo waxay noqonaysaa guusha maanta aan ku faraxsanahay in ay ka dambayso taas iyo waxaan kaloon ku darayaa taageerayaasha oo iyagana nala garab taagnaa hiil iyo hoo shalayna adinka u jeedeen waqtiga ay noo bixinayeen annagoo 9 qof oo daalan oo haraadsan oo maxaan ku idhahaa gameka uu sii socday haddana ay idin qaylinayeen waxa aan iyaga guusha aan ku gaarinayna iyaga dartood ayay tahay waxaan rabaa marka aan marna isku mahad celino marna isku dardaarano weli waxaan idin leeyahay hambali aan ku raaxaysano guusha aan gaarnay mar kalena waxaan leeyahay shaqo hadday diyaar noo tahay waayo 3 horyaal xiriir aan ku guuleysanay ma aha inaan seexano dadaalka hadda inaan sii badino howl ayaa hadda noo taala inaan difaacano horyaalnimadeena marka waa mahadsantiin sida wanaagsan shaqadiin u gudateen waajibkiina u gudateen runtii taariikhda ayaan idin xusaysa waxaa tihiin kooxdii saddexaad ee Soomaaliyeed ee sameysay inay ku guuleysato 3 sano oo xiriir ah horseed oo sameysay 7-meeyadii elman oo sameysay 2000 iyo ilaa 2003 haddana waxaa tihiin kooxdii markii saddexaad recordkaas dhigtay iyagana jabisay marka hambalya idin leeyahay waqtigeena aan ku raaxaysano waxaan idin leeyahay guusha aad gaarteen sidaan u qurux badan tahay farxadda iyo reereenta naga muuqatana waa u jeedin marka waxaasoo dhanna waxa ka dambeeyay waxa ku amaanan ciyaartooydii shalay juhdigooda bixiyay ama ha ciyaaro ama ha fadhiyo ama kor ha saarnaado waxaan idin leeyahay mar afraad mar shanaad hambalya